habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin Saudi Arabia ayaa ugu dambeyn qiratay in Jamal Khashoggi la dilay laakiin waxay dilkiisa ku eedeeyeen waxa ay ugu yeereen hawlgal qaa'inimo ah wararkii ugu dambeeyay ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale caawana waxa kamid ah kumanaan soo galooti ka yimid bartamaha America ayaa ku sii qulqulaya soodinta Mexico ay la wadaagto Mareykanka toddobaadkana waxaa socda bandhiga toddobaadka ee Soomaalida oo London ka furmay oo ay ka qayb galayaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliyeed qaybta ciyaaraha ee caawana waxaanu idin haynaa warbixin ku saabsan macad cusub oo lagu barto xirfadda goolhayaha kubadda cagta oo laga furay Muqdisho iyo ciyaarihii horyaalka Ingiriiska kala soco BBC News Somali Televisionka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaan ku bilaabaynaa Saudi Arabia ugu dambeyn waxa ay qiratay in wariyihii maqnaa Jamal Khashoggi la dilay boqorka dalka Sacuudiga Salman iyo amiirka dhaxal sugaha ah Mohammed bin Salman ayaa u tacsiyeeyay wiil uu dhalay wariye Khashoggi wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Adil Al-Jubeir waxa uu sheegay in wadankiisa uu ku raad joogo in uu helo dhammaan cadeymaha waxaana uu yiri shakhsiyaadka sameeyay falkan waxa ay ku kaceen buu yiri ficil ka baxsan awoodooda waxa sidoo kale uu sheegay in ficilku uu ahaa khalad weyn oo uu yiri wuxuu ahaa qaladku mid si labalaamay markii ay isku dayeen buu yiri in ay daboolaan oo ay qariyaan dilkiisa dowladaha Ingiriiska Faransiiska iyo Jarmalka ayaa saxiixay warqad wadajir ah oo ay cadeymo kaga dalbanayaan wadanka Saudi Arabia Angela Merkel ayaa waxay sheegtay in Jarmalku uu joojin doono hubka uu u dhoofin jiray Riyadh waxaa jira baahi degdeg ah oo loo qabo in la cadeeyo waxa dhacay aad ayaa wali looga fog yahay inay waxa kala cadaadaan si loola xisaabtamo cidii falkan ka dambeysay haddaba dowladda Sacuudiga ayaa dhowr jeer bedeshay mowqifkeeda ku aadan arintaasi markii ugu horeysay waxay sheegtay in wariye Khashoggi uu si nabadgelyo uga baxay qunsuliyadda iyadoo markaasi la helay muuqaalo cadeynaya markii uu galay qunsuliyadda oo sawiradaasi ay muujinayaan hase yeeshee baarayaasha Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in ay heleen cadeymo qeexaya in wariyaha qunsuliyadda dhexdeeda ay ku dileen koox si gaar ah u tababaran intaasi kadibna waxa dowladda Sacuudigu ay bedeshay mowqifkeedii waxaana ay sheegtay in Mr Khashoggi uu ku dhintay dagaal gacmaha la iskula tagay iminkana waxay qirteenba in la dilay saraakiisha Sacuudiga ayaa ku adkaysanaya inaysan ogeyn meesha uu ku dambeeyay maydka wariyaha iyo in dilkiisu aanu dhaxal sugaha boqortooyada Mohammed bin Salman aanu war ka haynin haddaba dhinaca wadanka Turkiga hadii aynu eegno madaxweyne Erdogan ayaa wacad ku maray in xog faahfaahsan uu markaasi bixin doono maalinta Talaadada ah ee berrito ah waxaanu raadinaynaa cadaalad dhacdadanna gabi ahaanba bannaanka ayaannu soo dhigi doonaa maxaa keenay in 15 qof yimaadaan Istanbul waa maxay sababta 18 qof loo xidhay arrintani waa in si faahfaahsan loo sharaxo haddaba waa kan wariyaha BBC da bariga dhexe Martin Patience oo isna ka falloonaya waxaanu ku arkayno Turkiga waa nooc laba siyaabood loo dhigi karo tan koowaad oo ah wararka ay saxaafadda Turkigu isla dhex marayso iyo talabaad oo ah jawaabaha rasmiga ah ee dawladda ka soo baxaya madaxweyne Erdogan oo ah nin lagu yaqaano inuu khudbado waaweyn bixiyo siba arrimaha noocan oo kale ah ha yeeshee aan wax badan ka hadal arrintan inkastuu sheegay inay taasi isbedelayso Brito Salasa oo uu sheegay inuu soo bandhigi doono runta oo qaawan waxa muuqata inaanu Erdogan albaabada ka xilin suurtagalnimada in meel dhexe la isugu yimaado madaxweyne Trump ayaa ballan ku qaaday in uu joojin doono kumanaan kun oo soo galooti ah oo badankooda ka yimid wadanka Honduras kuwaasi oo isku dayaya bal inay galaan wadanka Mareykanka hadda waxay rajeynayaan in ay dhinaca waqooyi ay aadaan si ay u gaaraan Mareykanka aadan Salaamiin ayaa faahfaahinaya
ma jirto farxad ka qarsoon muhaajiriintan waxaana ay orod ku soo dhaafeen booliiska Mexico si ay u sii wataan safarkooda adag ee waqooyiga Mareykanka. Soo jiidashadoodu waxay dhaqsaba ku bilaabatay in ay wax cad iska noqoto ilaa iyo meeqa qof ayaa ka soo gudubtay xadka Guatemala. Toddobaadkan oo dhan Donald Trump waxa uu dalbanayay in Mexico ay joojiso muhaajiriintaasi. intii muddo ah marka hoos loo eego waxa ay u muuqatay sida in booliiska rabshadahu ay isugu dayayaan inay safaf sameeyaan si ay kolonyada u joojiyaan. waqtiyada qaar xaaladdu waxay u muuqatay inay xiisada jirto laakiin cidina uma muuqato inay ka fikirayso inay tani ay tahay dhammaadka safarkii ay ku tegi lahaayeen Mareykanka. Uma baahnin baabuur iyo basas, ayuu yiri ninkani. waxaanu bilownay socodkan 8 maalmood ka hor, halkan kuma dhammaan doono. waxaanu dareemaynaa karti, ayuu sheegay ninkani. waynu ku soconaynaa wadada ilaa iyo Mareykanka. si dhaqso leh ayaa goobtaasi loogu diiday inay gaaraan Mareykanka. booliiska Mexico ayaa lagu amray inay fariistaan oo ay ku laabtaan basaskooda, waxaana ay u ogolaadeen qaar badan in ay soo gudbaan iyagoo aan la celin. dabayaaqada toddobaadkan xadka Mexico waxa uu u muuqday mid aan laga gudbi karin iyadoo albaabku uu xirnaa dhammaan. soo galootigu waxa ay ku xayirmeen buundada ka imaanaysa Guatemala. culayska kolonyada lama qiyaasi karo. markii ay yimaadeen ilaa iyo hadda waxa ay ku xayiran yihiin xadka kala qaybiya, taasoo in badani ay ogolaadeen yaboohii militariga Guatemala in basas dib loogu celiyo dalkooda. laakiin waxaynu aragnay sida ay qaar kale ay isaga qariyeen mas'uuliyiinta go'aankooda iyo sida ay u doonayaan inay ka baxsadaan noloshii Honduras ee ay ka tageen, taas oo ku dhalisay in dhowr xuduud ay ka tallaabaan. waxaanu eegaynaa nasiibka dal kale sababtoo ah dalkeenna waxba kuma haysano, ayuu ninkani noo sheegay. inkastoo Mareykanku uu ballan qaaday inuu qaadi doono jiilal badan oo barwaaqayo nolol wanaagsan raadinaya, hase ahaatee muuqaalkan oo kale waxa uu argagax gelinayaa Ameerikaan badan. inkastoo loo jeediyey digniino iyo khatar, muhaajiriin badan ayaa weli ku socda waddadii ay Mexico ku gaari lahaayeen si ay ugu biiraan kolonyada aan la joojin karin. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee caawa. bandow ayaa lagu soo rogay dhammaan magaalada Kaduna ee waqooyiga Nigeria si loo joojiyo rabshadaha halkaasi ka dhacay. in ka badan 50 qof ayaa la sheegay in lagu dilay markii muran uu soo kala dhex galay laba qowmiyadood oo kala duwan. la taliyaha ammaanka ee qaranka Mareykanka John Bolton ayaa wada hadal xasaasi ah ku leh magaalada Moscow kadib markii Ruushku uu sheegay in Mareykanku uu ka dhigayo dunida meel halis ah haddii uu sii wada buu yiri hanjabaadiisa inuu ka baxo heshiiskii la galay dagaalkii qababa ee lagu xadidayay gantaalada nuclearka ee Ruushka iyo Mareykanka. mid ka mid ah ragga heshiiskaasi wax ka dhigay madaxweynihii hore ee Ruushka Mikhail Gorbachev ayaa su'aal ka keenay qorshaha Trump. hogaamiye go'aan ah oo Nigerian ah oo ilaa sanadkii hore la la'aa ayaa hadda sheegay inuu ku sugan yahay Israa'iil. waxa uu ballan ku qaaday in uu wadi doono halgankiisii uu ku doonayay madax bannaani inay ku helaan dadka Biafra. Nnamdi Kanu ayaa ka hadlay raadiyo mas'uuliyiinta Nigeria ama mamnuuceen waxaana la xiray 2015 laakiin damaanad ayaa lagu sii daayay sanadkii hore markii uu dadku booriyay inay hubka qaataan oo dawladda Nigeria ay la dagaalamaan. jimcihii waxaa London ka furmay bandhiga toddobaadka Soomaalida kaasi oo lagu dabaaldegayo dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. dulucda toddobaadkan ayaa ama sanadkan waxaa lagu eegayay tagtada iyo timaadada iyadoo markaasi dib loo xuseeyay dabaaldega 10 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay. Aisha Afrax ayaa ka waramaysa. gabayo, saylici iyo sacab ayaa lagu furay sanad guuradii 10aad ee toddobaadka dhaqanka Soomaalida London Somali Week Festival. inta uu socdo waxaa lagu soo bandhigi doonaa suugaan kala duwan oo ka mid ah dhaqanka Soomaalida. ujeedada munaasabadan ayaa ah in la helo goob ay isku weydaarsadaan jiilasha Soomaalida ah hidaha iyo dhaqankooda, isla markaana si loola wadaago dadka kale ee aan Soomaalida ahayn balse danaynaya suugaanta caalamka. waxaana loo arkaa in bandhiga dhaqanka uu muhiim u yahay magaalada London oo ay ku nool yihiin qowmiyada aad u kala duwan.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sanad guuradii 10aad oo aan arko dad isugu jira jiilal kala duwan rag iyo dumar ku raaxaysanaya dhaqanka Soomaalida sida gabayada iyo qoobka ciyaar arrimaha oo idil aad ay ii farxad gelinayaan maadaama aan ahay duqa magaalada London magacaygu waa Hanad Darwiish maanta waxaan joogaa xaggan sanad guurada 10aad ee Somali Week Festival runtii waxaan aniga xaggan ka nimaadana qof dhalinyaro oo Soomaaliya oo hadana Ingiriiska iyo qurbaha ku koray meel ama madal kulmisa aqoonyahanka Soomaaliyeed wax garadka abwaanada maxaa la yiraahdaa oo dhan isugu keento oo labada da'yarta iyo waayeelkaba meel isugu kulmisa magacayga waa Qumad Jibriil waxaan ahaa caawa xiriiriyaha programka Somali Week Festival furitaanka Somali Week Festival aniga shakhsiyan hadan ka hadlo saamaynta ay leedahay Somali Week Festival waxay dhiirigelinaysaa iyo jacayl gelinaysaa dhaqankeena afkeena inaan kobcino iyo inaan ku faano markaas aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waxaana bandhigan ka soo qayb gala sanad kasta Soomaali ka soo kala safartay daafaha caalamka qaar waxay soo bandhigaan heeso iyo gabayo ay soo diyaariyeen kuwana waxay u soo aadaan inay daawadaan waxna ka soo fahmaan dhaqanka iyo hidaha Soomaalida wali waxay noo soo socdaa oo ku daawan doontaan qaybta dambe ee barnaamijka caawa ciyaarihii oo caawa aynu ku eegi doono warbixin ku saabsan macad cusub oo lagu barto xirfadda goolayaha kubadda cagta oo laga furay magaalada Muqdisho iyo waliba ciyaarihii horyaalka Ingiriiska ee hanaga tagina waanu isku soo laabanaynaa qadarna sina kadib walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli karto muuqaallo iyo falanqayn dheeraada oo ku saabsan wararka ugu dambeeya ee Soomaaliya caalamkaba sidoo kale nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram waxaan ku soo laaban doonaa qadar ilbirqsiya kadib wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawa ee caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn Saudi Arabia ayaa ugu dambeyn qiratay in Jamal Khashoggi la dilay laakiin waxa ay dilkiisa ku eedeeyeen waxa ay ugu yeereen hawlgal qaynimo ah kumanaan soo galootiya oo ka yimid bartamaha Amerika ayaa ku sii jeeda soodinta Mexico ay la wadaagto wadanka Mareykanka inkasta oo kubadda cagtu ay tahay ciyaarta ugu taageerada badan Soomaaliya marka la eego haddana waxaa jira in dadku aysan dareen badan sidaa u siinin goolhayaha si kastaba ahaatee Cabdirasaaq Goroji oo ah goolhayo hore kana soo laabtay wadankan UK ayaa Muqdisho waxa uu ka furay macad lagu tababaro goolhayaha oo ay dhigtaan caruur u dhaxaysa da'dooda 11 ilaa 15 wariyahayaga Axmed Xaaji Xasan ayaa warbixintan nooga soo diray laakiin man hadday saan noqoto oo ninka oo taakadaas daadist roos ridika waxaa loo sharaxayaa doorka goolhayaha iyo shuruucda garoonka waxayna taasi ku dhiirigelinaysaa inay ogaadaan muhiimadda uu goolhayaha ku leeyahay kubadda cagta qaar ka mid ah ardaydan waxay hadda u ciyaaraan kooxo kala duwan laakiin kooxaha Soomaaliya aad uma fahamsana ahmiyadda goolhayaha taasina waxa ay qasabtay in kooxaha qaar ay leeyihiin hal ama laba goolhayo oo kali ah goolhayaha dalka Soomaaliya aad looga maxisay macnaha macalinka laftirkiisa markuu ciyaartoy xulanayo marka koowaad wuxuu raadiyaa ciyaaryahanka laacibka ahaa goolka u soo dhalinaa midkii qadka dhexe midkii difaaca laakiin culeys kama saaro in goolhayihii wanaagsan uu raadsado saa og tahayna ciyaaraha kubadda cagta muhiimadda boqolkiiba 50 waa goolhayaha haddii kooxdihiisan goolhayo wanaagsan kooxdaas waxba ma noqon karto si walba laacib u haysato laakiin macallimiinta tababarkan bixinaysa waxa ay isku dayayaan in aragtidaasi la bedelo lana arko in guusha kooxda ay ku xiran tahay goolhayaha waana taasi midda ku qasabtay Cabdirasaaq Goroje in uu bilaabo machadka barashada goolhayaha waxaan ugu kalifay inaan furo Goroje Goalkeeping Academy baahida loo qabo wadankan Soomaaliya aan arkay in kooxaha ay haystaan hal goalkeeper ama laba goalkeeper laakiin Soomaaliya waxa arkaysaa qof walba inuu dhaxda ka dhilo jecel yahay goolhayaha ma jeclo wadankan saasa markay dibadaha ay tagaan aan gool daro aan la soo kulnaa marka insha Allah hadda future waxaan rajaynaynaa in gool academigan goolayaasha ka soo baxa in wadanku anfaci doono haduu Ilaahay yiraahdo waa tababar dhif iyo naadir ah oo ka dhacaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dhalinyarada halkan ku suganna waxay filayaan in mustaqbal sare oo wanaagsan ay ka gaaraan xirfadda goolhayanimada waxa kamid ah ciyaartooyda bixisay Soomaali
ku-itoon jirada qadar aadays marka waxaa ahay goolhayihii labaad marka waxaa arkay in meesha goolhayaasha train badan u baahan yihiin oo ciyaartooyda train ka duwan u baahan yihiin maanta waxaa matalay ku-itoon jir national team insha allah berna waxaa rajeynaya internationalna aado marka hoobkeyga waxaa soo koobi karmaaha mustaqbalkeyga waxaa rajeynayaa mustaqbal ifaayo oo wanaagsan haddee suurtagal tahayne waxaan jeclaa inaan ka mid noqdo kooxaha heerka sare horyaalkeena Soomaaliya ka ciyaara haddee suurtagal tahayna waxaan jeclaa inaan dunida daafeeda ka ciyaaro ama caalamka dhawaanahan kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa horumar sameeynayay waxaana maalgeliyo FIFA qaramada midoobay iyo maamulada gudaha dhalinyaro badan ayaana eegaya dhanka ciyaaraha waxaana loo arkaa taasi inay tahay midda keli ah ee dhalinta looga mashquulin karo tahriibta maandooriyaha iyo arrimaha amni darada keeni karo Axmed Xaaji Xasan BBC Muqdisho haddaba weli ciyaaraha kubadda cagta ayaynu ku jirnaaye balaan milicsanno dhinaca kale ciyaarihii koobka Ingiriiska ee horyaalka waxaa stuudiyaha ila jooga Maxamed Axmed Daysane dhinaca khadka Skype-ka ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ah ugu jirta Nasriin Xasan Maxamed oo ciyaaraha ka faaloota Nasriin adaan kugu bilaabayaa warbixintaas hadii aad dhageysanaysay in laga furo Muqdisho meel dugsi oo lagu barto macad lagu barto goolhayanimada ma wax aad u cusub oo dadku ay soo dhaweynayaan waa mahadsantahay farxaan adiga iyo Daysanaba waxaad moodaa waa wixii ugu wanaagsanaa dabcan Soomaali sameyn lahayd marka laga hadlo in la hormariyo dhanka goalkeeper-ka maanta dunida casriga marka aad fiiriso goalkeeper wuxuu noqday midka ugu muhiimsan tusaale waxaan soo qaadan karaa kooxaha Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Chelsea waxay soo qaateen goolayaasha dunida ugu qaalisan maanta annaga markaan Soomaalinahay dhibaatada ugu weyn aan qabno marka aan banaanka ku soo ciyaareyno oo aan soo ciyaareyno wadamada Afrika kale dhibaatada weyn la kulano waxay tahay dhanka goosha marka maanta akademiga la sameeyo waxay ka dhigan tahay inaan heli doono ama biri xal loo helay caqabadii dhanka goolasha badan laga dhalinayo marka waxa la rajo wanaagsan bay siinaysaa in ciyaarihii Soomaaliya iyo kooxihii xulka qaranka Soomaaliya aad waa waxa ugu muhiimsan dabcan markii xul la dhisaayo meesha ugu horeysa laga dhiso waa goalkeeper waliba ina annaga maanta wixii ka dambeeyay Soomaali ahaan Soomaalida ay helaan akademiyo goalkeeperada lagu soo saaro waxaad moodaa inay tahay wax weyn oo lagu horumarinayo dhanka goalkeeper-ka national team-ka waan kugu soo noqonayaa marka Nasriin halkaada ii joog Daysane adiguna kole ciyaarihii xulka qaranka Soomaaliya u soo ciyaartay arintaasi kooban hadaad u dulmarto sidee u sheegaysa Nasriin runteed waa run ahaantii goolaya waa muhiim labada ciyaartoy ay sheegtay oo Chelsea iyo u ciyaarayay iyo Liverpool qaasatan waxa kale oo ku sii jiray City goolhayahooda hadii inuu lugta ku dheelo loo soo gatay lugta inuu kubadaha ku dheelo marka arin muhiim waa arintan annagana xilligeena runtii akademiga ma jirin laakiin macalinka iyo goolhayaashu oo howlgabka naqda ayaa tababari jiray laakiin arintan waa arin aad hadaan u galno ciyaarihii horyaalka Ingiriiska dhacay maxay kala ahaayeen table-ka sida aan la socono ciyaarihii Ingiriiska oo ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxa dhex martay Chelsea iyo Man United taasoo Man United ay barbardhac keentay 2-2 ay ku dhamaatay Cardiff oo markii ugu horeysay ku adkaatay gurigooda oo ay uga adkaatay Fulham 4-2 City oo 5 iyo uga adkaatay Burnley West Ham oo gurigooda looga adkaaday markii labaad ay Tottenham ka adkaatay Wolves oo laftigooda gurigooda Watford ay 2-2 uga adkaatay Huddersfield Town oo ayadana wali wax guulo gaarin oo Liverpool ay gool uga adkaato Mohamed Salah ka dhaliyay hali eber waan gartay marka intaan u guda galin ciyaaraha mid waxaan u maleynayaa ciyaarta ugu xiisaha badan inay ahayd Chelsea iyo Manchester United waan kugu soo noqonayaa laakiin waxaan jeclahay inaan siiyo Nasriin aad baa looga xiiseeyaa ciyaaraha kolley meesha aad joogto Muqdisho horyaalka Ingiriiska ciyaartii Chelsea iyo haddaan dul marno Manchester United waa mahadsantahay farxaan horta waxaad moodaa kulankii ugu adkaa Premier League toddobaadkan wuxuu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Manchester United waxa ugu weyn ee xiisaha u sii yeelayna waxay ahayd Jose Mourinho isagoo oo cadaadis u saaran yahay inta aan la aadin gudashada waajibaadka qarankana uu kulan bandhig cajiib uu sameeyay uu comeback sameeyay soo laabasho uu sameeyay Newcastle uu la ciyaaray kadib isagoo oo culeyskii iska dajinayna uu ku soo laabtay bridge
oon ognahay taageerayaasha Chelsea iyo Jose Mourinho isku wanaagsaneen kulankan waa big match saari u dagaalamayay inuu sii ciirsado kooxaha City iyo Liverpool waxay sababtay marka kulanka inuu noqdo kulan aad u xiiso badan waan gartay laakiin markaad eegto ciyaarta qaybteedii hore waxaa lagu kala baxay hal iyo ever oo kooxdii martida loo ahaa Chelsea ay ku hormartay taas rajo xumo xun ma ay gelisay markii hore Jose Mourinho horta waxa ugu weyn waxay tahay Jose iyo waliba kooxdiisa Manchester United waxyaabaha la yaabka leh ee laga bartay waxa kamid ah labadii kulan ee ugu dambeysay hadii 45 daqiiqo ugu dambeysay kulankii Newcastle iyo 45 daqiiqo ugu dambeysay kulankii Chelsea la isugu daro waxa ka soo baxay kulan 90 daqiiqo qurux badan laakiin waxaad moodaa Manchester waxay noqotay in qaybaha dambe markii loo fiiriyo waa half time ka dambe inay noqoto koox awoodeeda aan la saadaalin karin markii Cabdiraxmaan waxa lagu filan kulankii in badan kulankii Newcastle iyo Chelsea 45 daqiiqo dambe Jose iyo Manchester inaba waa koox aad u awood badan laakiin mid isweydiinta badan waxay tahay macnaha half time walbo ma sida u ciyaarto kooxda Manchester waa su'aal muhiim ah ciyaaraha kala xiisaha leh waqti badan ma hayna laakiin haddaad ka gudubto Chelsea iyo Manchester United runtii ciyaaraha kala aad xiisaha weyn u lahayd waxay Manchester City oo gurigooda 5 iyo eber uga adkaata Burnley taasoo goolaheeda Johar oo laba horyaal la qaaday yimid City waxa u malaysa inay u muuqato in la celin la ayaa sida kubada isku dhiibayaan siday u dhaqaasatan qaybtii dambe Mahrez gool cajiib loo ka dhaliyay Bernardo Silva marka City hadii isniinta soo socota ay guriga u tagi doonto Wembley ay la ciyaari doonto Tottenham hadii ay ka adkaato waxa u malaysa in wadadii sanadka hore ay marayso oo cidna aysan celin karin ay u badan tahay sida City ay u ciyaarayso runaantii waa si aad iyo aad u xiiso badan Liverpool ba iyaduna sidaas oo kale u muuqato maxaa iyaduna tala marka la eego Liverpool waxa u malaysa in afar ciyaar ay soo badan laakiin ciyaartan Huddersfield ay u timid in ay ka adkaato inkastoo Salah muddo badan oo soo wax dhalin goolsi uu ka dhali laftigooda waxa u malaysa in ay Liverpool sigatay kadib markii kubad birta looga dhiftay Huddersfieldna wali ma aysan badin oo meeshaas u xiriirtay barbardhac ama gool inay ka gaarto laakiin farxan hadii aan u noqdo arintii ay ka hadlaysay Nasrina ahayd Chelsea iyo Man United ciyaartaas waxaan qabaa guushi inuu keenay ciyaartooygii Martial qaasatan goolkii labaad sida uu dhigtay sida uu dhigashadii toosishadii iyo gool toogashada hal mar inuu ka dhigtay waan gartay xirfadda oo la soo baxay kaasoo kayd ku jiri jiray oo Sanchez u fadhiji jiray laakiin maanta waxa la leeyahay Martial ma la fadhiisi karo labadiina si fiican baad u saadaaliseen marka waxaan jeclahay inaan gabagabadii aan ku hormaro Nasrina saadaasha yaa la isleeyahay horyaalku way qaadi doonaan si kooban Nasrina farxana waa mahadsan tahay laakiin Premier League xilli hore iyadoo la ciyaaro wax ka yar 10 kulan oo ay adag tahay in lagu degdego horyaalka cid baa qaadi karta laakiin ilaa ay haatan sida cad waxa ugu cad wali kooxda kubadda cagta Manchester City inay difaacan karaan Liverpool iyo Chelsea inay dagaalami karaan ilaa ugu dambeynta xitaa Arsenal laga saari karo waan gartay daysan adigana waa sida uu sheegtay Liverpool iyo City Arsenal way soo socotaa laakiin waxay u badan tahay City inay koobka dib u cesho doonto Nasrina arintaas waa isku raacnaa u malayna City inay koobka qaadi doonto ayay u badan tahay ayay u badan tahay waan gartay marka isku soo wada duub marka ciyaarahan hadda waxay leedahay Nasrina lama saadaalin karo sababtoo ah ciyaaro fara badan ba lama dheelin wali waa aad bay u sii horeysaa in la saadaaliyo runtii aad u badan tahay laakiin waxaan u malaysaa City sababta loo leeyahay inay ka ciyaartooy tayo fiican tahay Kevin De Bruyne oo laacib weyn ah oo la yaqaan oo iska fadhiyay marka kooxaha kale dadkaas oo kale ma haystaan aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga iyo Nasriin baad mahadsan tihiin inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii xusuusnow wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali intaanu mar kale dib u kulmayno dhamaantiin waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan daawadayaal